waxay culimadu tilmaamaan amaanaadka acdaadaada maalan ishu waa ammaano laakiin maxaad ku isticmaalaysaa wixii sharcigu baneeyey uun wixii kale waa khiyaana khaa'inat alacyun bay noqonaysaa gacantu waa ammaano carabku waa ammaano caqligu waa ammaano lugtu waa ammaano waxoo dhammi ammaanay noqonayaan markaynu dhan kale ka eegno diinta oo dhammi cibaadaadka salaada soonka waajibaadku saaran oo dhammi waa ammaano xagga kale markaynu u eegno waa mas-uuliyaadka dhammaantood ka bilaabanta mas-uuliyadda guriga reerku waa ammaano caruurtu waa ammaano ilaa iyo laga gaadhayo madaxtinimada ugu sarraysa khilaafatulmuslimiin iyo wixii ka sokeeya ama umaradhe ama muluukdhe ama states iyo dowladaniman xukumayadhe ama shirkad qof xukumayadhe wax kasta oo markaa mas-uuliyadoo ku saarani noocay doontaba ha u ekaatee xataa shaqadaad qabanaysa ha ahaatee mushaarka qaadanayso wax kasta oo mas-uuliyadi kaa saarantay waa ammaana la rabo inaad u gudato sida ugu fiican waxaana qur-aanku uu tilmaamaya inay tahay sifaadka ugu sarreeya ee bini aadam lagu sifeeyo honesty dadka bini aadamka waxaa ugu koreeya rususha oo dadka ugu sarreysa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka koowaad ee uu ku sifeeyey waxaa ka mid ah ammaanada ولذلك بقى النبي ولبا مثلا في سورة الشعراء آيات كاستبا صعدا مركز أخذوا بغولية الضباء الله يو لقى قاد يو بغولية سداد يتضباطا شان لح نبي ما لها سكتشرة نبي ولبا وحولي إني لكم رسولنا أمين تضوحان دينا هاي رسول أمين وحي الله سودي بي xilkeeda qaadayo sidiisa u gudanaya inni lakum rasuulun amiin bal rususha cida waxyiga loogu soo dhiibo ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa jibriil sifaadka la inoogu sheegay wax weeyaan ar-ruuhul amiin mutaa'in thumma amiin nazala bihi ar-ruuhul amiin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa sifatul amaana inuu yahay mid aamina oo wixii loo soo dhiibay ambiyada sidooda u soo gaarsiinaya نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وصفاته كعام بحي حتى قبل الرسالة إنتان إلهي بالرسول لماذا أدورن الصادق الأمين بعربي وتغاني إنه يهيكو credibility ولا هذا الكيس الصادق يرون يهي وحلا قيمين كرو يهي إسلام مركانا آمنة حتى قرن كرتا warkii dhex maray imaam al-Bukhari uu soo saaray ee boqorkii Romaaniska ka talin jiray Heraclius loo oran jiray iyo markii ay kulmeen nimankii Carbeed ee gaalada ahaa oo Abu Sufyaan hogaaminayo nabigu kaleey salaatu wasalaam waraaqo uu kala diray boqoradii dunida ka jiray oo leeyahay islaama dabeetana Heraclius oo yimi Bayt al-Maqdis ayaa waraaqdii u timi kadib wuxuu yiri ninkan yaa garanaya wuxuu rabaa bal ninkan waraaqda uu soo diray inuu warkiisa helo isagu waa halka maanta dawladaha waaweyn ku jiraan markaa dunida ugu jiray marka qof aan laba garanayn isaga agtiisa ayaa waraaq helay qofkan aniga waraaqda soo diray waa kuma buulay yaa garanaya waxa la yiri qola isku reeriyiin baa joogta magaalada igu yeedhay buu yiri lixnin ayaa u yimi oo Carbeed oo Abu Sufyaan hogaaminayo أبو سفيان وانين قال مركز مو إسلامين أبو سفيان مركو النبي محمد كوبي الله تنصر مالها لدى قال لما يبو إسلام لابد السنة ودن بيسي أيو مسلمها لكن كوبي الله تنصر نضوط نبي عليه الصلاة والسلام كسور جيدي وقتك كان مركا ووقتك السلح حديبية ودعي أول مصوى سقالي يتبنصر نضوط بمركا نبي قسحيان 19 sanadood isagoo dagaaladii soo dhex mareen oo Badr iyo Uhud iyo wixii oo dagaal soo dhaceen ayuu Heraclius waraysanaya 14 su'aalood ama 13 su'aalood buu weydiiyay oo uga jawaabaya su'aalaha waxa kamid aha oo Heraclius weydiiyay warninka kani muxuu idin amraa waxaan uu wada ii sheeg wuxuu yiri wuxuuna amraya inuu yaamur bis-salati والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة
أبو سفيان وقال لك ورمى يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي وليمي وحنا ليمي بويل الصلاة لتكده رون لا شيغو دور سنة لا دور سنادو بلن كل أوفيو يا أمانة أول قطه وحنا مروا كاسبيل أبو سفيان هرقل اسباب مركب وحكو جوابي هذه صفة النبي وحنا دي شيغيسا وصفات كأي نبي يدل هاي مركلو وحويدي هل يغدر وحما خيامية بلن فرو ما سمية تذكر انتو بلن ما لقلو ما كاكبحا خيامة باب كاسية ما سمية وحيدي ماي تانا ما يقانو وكذلك الرسل بيقول لا يغدرون رسول شنو وحما خيامية إذن وحن لنا وصفات كوغو عامسا إلهي سبحانه وتعالى وكسفيي رسوشيسي ولذلك النبي وحلي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين كيالا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء ورميدني آمين بولي يدو أنا هيكو آميني يعني رب السماوات والأرض وعرك إلهي وريقا كيرا waxaan uga dan leenahay qadiyadatan amaanadu qiimaha ay leedahay intuu gaarsiisan yahay inay tahay waxa Ilaahay ku sifeynayo rusushii uu doortay ee khalqiga oo dhan uu ka doortay hatta nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam ulama siira waa kuwa tilmaama sidoo amaanada u fulinayay iyagoo ishaya oo ay rabaan inay dilaan haddana wixii ay u dhiibteen amaane u hayay kalamu baxsanin bay yiraahdaan ومركو هجروني وحلا يدادا علي وحيابه وربه وحكمدها إنه سيدي بي وحي أمانوين أي قال لهيت إنه كذب وعليه وحكى له إلهي القرآن كنت المام يا أمانة إنه تهي صفات كأغمضا ضدك جنة قوبة وقصر رئيسك الجلية جنة وهيرر هير كده وقصر رئيس الفردوس الأعلى بالله يدادا فردوسك هو الجلية إلهي وحكو سفيي طبعا الصفات القرآن كنت المامة وحكمده والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقوى أمانة دودة إيا وحي بلنا يقالان راعبا ليلي حولا قفك الراعب حسمية وحفظية وإلالية بهالية وحوال بواكا دورة إلهي وحولي وقوى إلالية أمانة دودة إيا عهد دودة تبتنا إلهي وحكوت الماما كواسيني كمدين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الفردوس الأعلى قوة نحلة ينيتاي في سورة المعارج مركة إلهي وحكوت الماما والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كدبنا إلهي وحلي أولئك في جنات مكرمون قوة بلن كودية أمانة دودا إلى لنيا وقوة إلهي بولي جنوين لقو كرامي لدجينيو إذن أيها الأحبة أمانة دينها نالكاسي جوفتا رسوشا لغو سفايي مؤمنين تكوي ugu sareeyay lagu sifeeyay saxaabada hatta kuwi ugu mudna asharatul mubashirin in kamida buu nabigu tilmaamaya amiinu hadhihi al-umma inuu Abu Ubayda ibn al-Jarrah mu'min dhammaantiina Ilaahay wuxuu nabigu wuxuu tilmaamaya حديث السنن أبي داود كيالي صحيحة والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم مؤمن كردبك وحلا يراهدا قف كيدتك كو آمنا نفتو ديو يمال كودا نبت قليا كاسبا مؤمن دبا وحكالو النبي كو ينوغا ورما يا قصص كي كي هوري يسيدي أمانة داو إلى لنشرين وحان ربا لكن قصص كاس حديث البخاري كنت الله يوحي لما داينا ندافو dhanka kale hadaynu eegno amaanad darradu waxay sifo u tahay cidii aan diin lahayn ama se munaafaqa labada ay u fiirso hadaynu dhahay amaanadu waxay sifo u tahay rusul iyo nabiyo iyo muuminiinta firdaws al-a'la gala amaana xumadu ama amaanad darraduna waxay astaan u tahay man la diin lahu كي أن دين لهين يقفك منافق الله بدأ صي علامة ضطي يقفك الله إذا آمن بمأها معناه هذا حويان الله بدأ صفة متبال لغو صفينية أما تينيك قفك الشقاوة يا شقا دنقبته سواء كماها قفك الشقا هلي يحوك سنكريا سوما لدو حوك سدا لكن إنك حوك سيكا كلك سوحد مو
ayaa yidhaahda reerkan ama cumaamadda u qaadanaya ama baabkan u gelaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka cabsi qaba wakhtiyada iyo sida ay u faafi doonto wuxuu soo warramay khayru lquruuni qarni, qarnigaygan baa u fadli badan buu nebigu yidhi. centuriska kanaan anigu noolay ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. dabeetana ka ku xiga saxaabiga xadiidka sheegaya wuxuu yidhi mid kale inuu sheegayo in kale ma sii garanayo, 3 buu sheegay mise uu ka kordhiyey. markaasuu dabeete wuxuu nebigu yidhi ina bacdakum qowman yakhuunuuna walaa yu'tamanuun. idinka gadaashiin dad baa iman doona wax khiyaamaynaya oo wax duul la aamina aan ahayn. xadiidku uu sii wadaa, calaamadda u dambaysu maan idiin sheegaya uu tilmaamay. wuxuu ku sheegay inay dad khiyaamalowya yihiin. wuxuu kaloo nebigu ku sheegay khiyaamalowga dadkaa ahi haddana inay yihiin buu nebigu yihi dad buurbuuran. wayadharu fiiha saman buu nebigu yihi calayhi salaatu assiman, yacni tuugnimadaa ka muuqatuu nebigu tilmaamaya. waa dad wax khiyaamaynaya oo aan la aamini karin, laakiin haddana ah buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wayadharu fiihim assimanu. baruurtaa xoog uga muuqan doonta buu leeyahy wakhtiyadaas. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa nin reer miyiya soo galay isagoo nebigu saxaabada la hadlaya. markaasuu yidhi yaa rasuul allah mata saaca, qiyaamuhu waa goorma? nebigu muu eegine warkiisii buu iska watay. saxaabadii meesha fadhidaa hoosta ka guuxguuxoo qaarna waxay idhaahdeen waar nebigu malaa ma maqlay ninkani wuxuu leeyahay. qaarna waxay idhahdeen mee wuu maqlaye wuu iska daayay. laakiin nebigu warkii uu hayay calayhi salaatu wasalaam markuu dhammaystay ayuu soo jeestay. markaasuu yidhi ninkii su-aasha waday mee? waa aniga buu yidhi. mata saaca buu leeyay, qiyaamu goormu dhacaya? nebigu qiyaamu goortu dhacaya kama warhayo oo ciidimo oga, ilaahay unbaa suu qur-aanka ku sheegay og. laakiin calaamadihii loo sheegay wax ka mida buu nebigu u tilmaamay. wuxuu ku yidhi idaa dayicat ilamaana fantadir isaaca. ammaanadu hadday lunto oo la ammaano waayo qiyaamihii fila buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dabeetana ninkii su-aal kaluu nebiga ku celiyey oo ah kayfa idaacatuha yaa rasuula allah. ilaahay rasuulkiisiiyow sidee bay ammaanadu u lumaysaa? waa qaabkee? idaa usnida alamr iyo idaa wusida alamruba waa la soo arooriyaye. idaa usnida alamru ilaa gayri ahlihi fantadir isaaca buu nebigu yidhi. arrinka ciddii lahayd cid aan ahayn haddii loo barkiyo ama loo tiiriyo, carabta iyo dhaqamada xataa soomaalida qaarkood reer jabuutiya baa leh barkin weyn baa guriga la dhigaa, dadka loo dhiga ay ku fadhiistaan. barkimooyin ka adag kuwan la barkada ee caadiga ah oo qofku markuu xaafadda yimaado loo dhigo uu ku fadhiisto. carabtuna saasay isticmaali jirtay. marka qofka barkintaa loo dhigay ku fadhiistay dee arrinkiisagaa loo tiiriyey. marka idaa wusida alamru min alwisaada ay idaa usnida alamru, haddii arrinka loo tiiriyo buu nebigu yidhi cid aan ehel u ahayn, qiyaamaha eego. markaad aragto dadka wax maamulaya ama dadka horkacaya ama mas-uuliyaadka qaadayo aan ahayn kuwii xaqa u lahaa, aan ahayn kuwii mas-uuliyadda qaadi lahaa, markaa qiyaamaha fila buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. waxay idhahdaan imaamu albukhaari raxmat ullaahi calayh xadiidkan wuxuu ku soo arooriyey bay idhahaan fii kitaab alcilm. kitaab alcilmi iyo ammaano maxaa iska galay? xadiidkan markuu soo aroorinayay wuxuu ku soo arooriyey baa la yidhaahdaa kitaab alcilmi, kitaabka uu cilmiga kaga warramayo. ibnu xajar markuu sharxaya isna waxa uu ku tilmaamayaa munaasabada xadiidkani uu la leeyahay, xadiidkan matnigiisu noocaaya uu masaladan la leeyahay waxa weeyaan wakhtiga kan jahligaa badan doona, cilmigana waa la rafcinaya weeyaan buu leeyahay. yacni haddiiba ay dhacdo dad aan meesha u cuntamin in la geeyey, meeshu waxaa ka jira jahli iyo aqoon darra ka jirta. ayuha alaxiba, ammaanada ilaahay qur-aanka isagoo ka warramaya niman ahlu kitaab ah oo la ceebaynayo
ceebaa qur-aanku uu soo arooriyey ahlu kitaabka waa tiro badan yihiin laakiin qolo sifadaa ammaanada wax ka mida laga helay ilaahay waa u qiro waa u tilmaamay nimahan ahlu kitaab baa ilaahay yidhi ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك أهل الكتاب وحكم دبا إلهي يري قار هداد قنطار حولا أولي بتوادقوا إيمانيس آمنة وحكروا كم دبا إلهي يري قار هداد دينار أولي بتوادقوا صوغارين قارنا قسنا هداد أولي بتوادقوا هينيا qaarna waxa ilaahay ku tilmaamay maxay diinaar hadaad u dhiibto laa yuaddihi ilayka ilaa maa dumta calayhi qaa'ima ma bixinayo ilaa inta de xisaab la dul taagantee uun la controlayo la ilaalinayo mooyaane si kale lagaga soo saari maayo waxa meesha jira markaa wuxuu yahay ammaanadu dhanka khayrka haddaad u eegto waa sifadii rususha iyo saalixiinta iyo dadkii hore ee saalixiinta iyo muuminiinta jannatul firdaws dhaxlaysa jannada lagu karaameeyay waa sifadoodii amaana darrada dhankeeda haddaad eegtana waa ama dadka aakhiru zamanka iyo waqtiga imanaya dhibtu jirto oo calaamaadka qiyaamahaba u ah iyo dadka diinlaawa ama munaafiqiinta calaamadooda weeyaan maxaa ina saaran markaa waxayna saareen wuxuu yahay qof waliba in buu mas'uul ka yahay inta badan bini aadamku waxa caadiya soomaalida mahmaahdeedii ahaa maxay soomaalidu tiraahdaa takarta saaran ma arkay wuxuu arkaa maxay takarta takala saaran dadka malaa inta takarta garanaysaa yar baan u malayn takartu waa baal yar oo xoolaha cuna marka qofku maroodigu bay yidhaahdaan takarta saaran ma arkee ka kale ta saaran buu arkay waxay uga dan leeyihiin ceebtaada haddaad arki weydo aad ceebta dadka kaluna aragto waa dhib waxaan uga dan leenahay dadku marka ammaanada iyo waxaan la soo qaado inta badan kuwa kale ta saaran buu arkaa oo madaxda iyo maamulada iyo kuwa waxa saaran laakiin kuwa inaga kaalay adiga taada ku khusaysay inagu amaanada intiina saarayd ma xifdinay ishaadi dhagtaadi carabkaagi gacantaadi adinkaagi jeebkaagi lacagtaadi caruurtaadi reerkaagi aqoontaadi aduu ma xifdiday ta kale ka saarani aakhir isaga ilaahay ku xisaabinaya adiga xilka ku saarani wuxuu yahay waxbaad maanta mas'uul ka tahay آخرنا إلهي كويدين يا سبحانه وتعالى وحباد مسؤول كطاي أي وجه الرئيس نفتاضه وكحيق الركاو وكحيق عرور تاضه وكحيق جار كاجي أنت كويه أي كوضه الرئيس الدين تادو هذه مسؤولية دا ساكو صارا مسؤوليات كي إنا صارا إلهي وحينا ليه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم بلينيري warkuu ilaahay iyo rasuul rumeeyo alla iyo rasuul khiyaameynina alla iyo rasuulkii khiyaameynina oo saw khiyaameynaysan wa takhuna amanatikum wala takhuna amanatikum war amaanadiina khiyaameynina ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala idan amaanadayna saarana way tira badantay aqeedada amaana ka saaran ee diinkaaga ma barat cibaadadaada amaana kaa saaran xil baa kaa saaran iyo mas-uuliyad ee sidii rabbi ku faray ma u cibaadaysatay naftaada amaana kaa saaran ee ma dhowrtay oo naarta ma ka ilaalisiyo wixii lagu yidhi ka ilaali ubadkaaga amaana kaa saaran mas-uuliyad baa kaa saaran ma gudatay idan waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuunkii ma ku sifowna mise kuma sifowno kuwa amaanadooda iyo ballamahooda ilaaliya shaqada gaalada u shaqaysaan ama muslim u shaqaysaan ama masaajidda ka shaqaysaan waa amaana ma itqaanisaan ma sugtaan waqtigooda ma u ilaalisaan wixii uu kugu aaminay ma sidooda ma u xifdidaa sidii lagu yidhi u dhaqan ma u dhaqantaa mise waa gaalo waa la iska dhinac maraya waxoo dhami waa amaana idan darsigaygu
waxaan jeclaa inaan iska soo koobo waxaan ku soo koobayaa wuxuu yahay nusuus badan oo quraan iyo xadiida soo arooray ciddii rabtaa kutubtay dib ugu noqon doontaa oo masaladaa ka warramaya waxaana culammadu tilmaamayaan fii kulli labwaabna inay gasho oo baab aan abwaabta ka mid ah oo aan ammaano gelini inaanu jirin nabiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa dhiiri gelinaya ayuu in badan wuxuu uga warramay xataa umamkii hore dadkii ammaanada lahaa masale wuxuu tilmaamay nin caqaar ka iibsaday meelahan dhismayaashu ku yaaliina meeshiibuu wuxuu ka helay jara kuusad ama ashuun ama jalxad waxaad u taqaanaba weel uu ku jiro dahab ayuu meesha laga soo qoday dabeetana weelkii dahabkii intuu soo qaaday ayuu ninkii dhulka uu ka iibsaday buu u keenay wuxuu yihi war anigu meesha baan kaa iibsaday laakiin meeshii dahabkaasaa ka soo baxay dee anigu dahab maan iibsane dhulkaan iibsaday dahabkaaga waa kan buu yidhi ninkii kalena wuxuu ku yidhi war anigu wax ku jirana ma ogeyna dhulkaasaan kaa iibiye adaa isule wixii kuugu jira iska qaado nabigu isagoo tilmaamaya nimankani ammaanaadka say u ilaalinayaanba wuxuu yidhi labadii nin waxay noqotay inay maxkamad isla galaan iyagoo isku haysta adaa leh iyo adaa leh innaga maxkamadeennu maxay ku salaysan yihin anaa leh iyo anaa leh laakiin labadan maxkamaddooda waxay ku salaysantahay adaa leh iyo maahee adaa leh bay isku hayaan kadib baa ninkii u garqaadayay qaab kalu ugu garqaado wuxuu ku yidhi caruur ma leedin markaasay yidhaahdeen haa mid baa wuxuu yidhi inan baan leeyahy kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahy deetana wuxuu ku yidhi labadaa isu guuriyo oo dabeetana intan siiya buu ugu garnaqay labadaa intaa isku dartaan xadiiska bukhaari ku yaalla labadaa intaa isku dartaan buu yidhi dabeetana labada ku sadaqadaysta xadiisku macnaha uu tilmaamaya waxa weeyaan dadkani siday rabeen inay u xalaal miirtaan inaga sharcigeenna waxbaa ka yaalla rakaaska iyo macaadinta iyo waxyaabaha dhulka laga helay iyo axkaam bay leeyihin laakiin markaynu axkaamta ka nimaadno mafhuumkaynu ka qaadanayna waxa weeyaan dadkani ammaanada say u ilaalinayeen ayaa waxay keensatay inuu nebi maxamed uga warramo calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii si uu ugu dhiiri geliyo ammaanadu qiimaha ay leedahay